qaybta kaydku waa qaybta ay inoo yaalaan waxyaabaha kaydka ah ee la kowsaday TV-ga qaranka 2015 ilaa maanta iyo kaydadkii hore ee mar walba idaacadda amba ilaa halgankii qaybo kamid ay ka yaalaan halkaasna waxa lagu kaydiyaa kaydadka cusub iyo kuwii horeba waa qaybta loogu talagalay in marka wax loo baahdo loo noqdo ee laga soo qaato hadii barnaamijyo documentary la sameeyo hadii xusuus lagu noqonayo hadii waxyaabaha abuura la doonayo in xaqii hore laga soo bilaabo amba wuxuu ahaan jiray la eego waa halka marjaca ah isagana laga soo qaado bismillaahir rahmaanir rahiim magacay waa Nimco Aadan Maxamed waxaan ka warbixinayaa kaydka TV-ga qaranka TV-ga qaranka waxa la aasaasay kaydkiisa 2005 markii TV-ga qaranka la aasaasay xilligaas oo loo baahday in la kaydiyo wixii baxa ee baahinaha ka baxa markii horeysay waxa lagu duubi jiray canjaladaha waaweyn markii labaad waa laga guuray kuwan waa laga baxay waxa la sameeyay kuwana loo guuray kuwana waa laga baxay qaybtan kala loo guuray maalin walba tadawur baa imanayay markii dambana kuwan DVD-gaas loo guuray بعدين إمك ميمري بوح لقطوبة ميمري جنا إن شاء الله ولا قصي بحياة إمك هو إسكا جبابسي مركب وحل دونيا إن سيرف اللجود وريتشيو دمان كيد كتيفي جوردن أو لو وريتشيو إن هو هاي سيرف اللجود وريتشيو قرشها لبده كون يشني لا تنكا إن شاء الله مستقبل كسوة سعودة